باسمك الحق فبما أنك الحق باينت برامج كنت أنا نوقف قلن بالا كوب اللعبية أنا نكرر كحريري ونتاجن إيمانكي ساعدنا كمرة بسورة جلسة بلو برامج بسنك وقير بدن بسم الله وأكو بسنك أنكو اللعبية واحد البول بالعالم بسنك وقير بدن إذا بش يبرواقب اللوجارة بريء ما بدامي كلجتان برامج كبيسين كانكو بلاويا بسم الله الرحمن الرحيم سلام سعدان ساقون سكينة سجالي يسوسو دوين سلامة سورة جنية كالجعيلك ساشمية دي سامحة ساقط سو دوين سماو عاد سعدان برواقيو سحة الكون بدن سلاقي ميسن قابيسن قايسن روح بدن قاليا قصد كذا وعد ياي قياننا أي كمرنتاي عن ضد سلامتو ومد دردريسا دنيا لغو سودا بولي ديارمون أي سنة حساب اللهين سلام الله تعالى عليكم وبركاته سيداد أركيسان ما تاريخ وحيكو أستيسان تاي 12 أكتوبر 12 أكتوبر ومالنتي ليندسي على كايغا قروح البدن على كايغا سوبان صعب كانوا تنو سيدا دار كيسان بوركان ماتو حكو حسن ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee garaadmaal waxa kale oo ku xisan boorka maalintii la aasaasay ururka 11 January 2016 marba haddaad aragtaan muuqaalka eega marqaanku yaa idin sirine maanka soo xaadiriyo waa ururka waxbarashada iyo wacyigelinta garaadmaal oo madadaalo idin hayo mawlihiinana aqoonsada waxaan ku soo dhaweynayaa oo aan wada sugaynaa sidaad u dhantihiin madaxa waxbarashada ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee garaadmaal Professor mudane Farxaan Maxamed Iimaan sacabkiisa soo dhaweyntina waxaad mooy والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان مامورك إسكولك معلمين أرضيدا إسكولك وصدح يسر على ما رأيك سلامي أسنع عطان وسلامتهم. كنت هذا أكبر أحسنها هنا ما تكسوق يتقلو مناسبة 12 أكتوبر أواه ما أنت عالم في صوماليا قياله هندسي كنت munaasabadaha noocan oo kale waxa loo qabanayo waxay tahay in bulshada gaar ahaan dhalinyarada ay ogaadaan qiimaha uu calanka Soomaaliya ugu fadhiyo bulshooyinka Soomaaliyeed. dabcan waxaan jeclahay inaan halkaani wax yar ka dhaho kadibna haduu aado karaan noqdo tixayar oo calanka Soomaaliya uu sameeyaan ku soo gabagabeeyo. markuu ugu horeyso horta calanka Soomaaliyeed sidaan wada ogsoonaa waxa uu ka kooban yahay laba midab oo ah buluug iyo cadaan. ninka hindisay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Cawaale Liibaan. dabcan ajaa'ibta uu calanka Soomaaliya leeyahay waxaa ka mid ah inuu shabaho ama se uu eg yahay cirka oo kale, taas oo ah haddii in badan loo fiirsado mid ajaa'ib ah oo qofkii in badan ku fikirana wax ugu soo baxayaan. sidaan wada ogsoonahay إلهي سبحانه وتعالى كونك مركو أوري وحاجر وحياوة برمنا انتهانا ولي قد أنقوري دونين إلا مالك قيامة وكرام.
waxaa ka mid ah cirka ilaa maalinka qiyaamo saasuu u taagnaan doonaa. marka maadaama calanka Soomaaliyeed uu leeyahay midabka cirka oo kale buluug iyo cadaan uu leeyahay, taasi waxay muujinaysaa in calanka Soomaaliya hadduu aabakaraal noqdo uu noqon doono mid joogto ah oo maguuraan ah hadduu aabakaraal noqdo insha Allah waan rajaynaynaa. mideeda kale calanka Soomaaliya marka la dhaho ama calan marka la dhaho wadan walba ama bulsho walba oo caalamkaasi ku nool waxay leedahay astaamo kaga soocan yihiin bulshada kale ee caalamka ku nool. anaga haddaan Soomaali nahay astaamaha kaga soocannahay bulshada kale caalamka ku nool waxaa ka mid ah calanka Soomaaliya oo aanan jirin bulsho nala wadaagto oo hadda caalamkaasi ku nool. taasina waxay noqonaysaa haddii calanka Soomaaliya la waayo in ay ka dhigan tahay in la waayo qayb ka mid ah astaamihii bulshada Soomaaliyeed ee kaga soocneed bulshooyinka kale ee caalamka. marka ma ahan wax lagu soo koobi karo war qiimaha uu calanka Soomaaliya u leeyahay bulshooyinka Soomaaliyeed. waxaa mar kale ugu hambalyanaa dhammaan maamulka iskuulka, macallimiinta, ardayda, xubnaha reer Garaadmaal ee ku sugan Al-Anwaar munaasabadda 12 Oktoobar. hambalyo ayaan leeyahay. aan kusoo gabagabeeyo aanan hadalka dheeraynin taxaha yar ee aan u sameeyey calanka Soomaaliya, kaas oo aan jeclaystay inaan halkaani ka soo jeediyo. taxahan waxaan kaga hadlaa hadduu aabakaraal noqdo calanka Soomaaliya iyo qiimaha uu ugu fadhiyo bulshooyinka Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabaa calankeena quruxda leh maalinkii la cawreeyey xidigtana lagu cabiray cadaan iyo baluugiyo loo dhameeyey ciziye farxad ku wada caawinay caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. caraftii xorriyadda maalinkay Soomaali corato geesiga Cabdullaahi Timcad kugu ciseeyey oraahdii Soomaalida ku caanbaxday kan nasiib kan nasaar caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. qolo waliba calankeed calaamad u gooniya marka ay ku cabirteen adigu si cajaa'ibta cirkaasaad ku caan tahay caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. cisho walboo la joogiyo cilmi barashadiisiyo camal haddaan ku dhex jiro cisho walboo la joogiyo cilmi barashadiisiyo camal haddaan ku dhex jiro ceynadaada quruxda leh tix inaan ka curiyaa kama daala carabke caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. curudada jirkaygiyo dhiigga dhex cararaayo sanbirkaaad ku coon tahay caloosha hoy ku leedahay wadnaha camal la jira tahay cid walbaba ogeysiin caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. caqli iyo dadaal iyo ciyaar iyo mashxarad iyo munaasabad caynbaacayn ah inaan kugu ciseeyaa calmatay nafteedii caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. cilad kuuma ogolni caynadaa warkeedu cid walba wax kugu tira cunaha inaan ku dhagaa caalamkan u joogaa caadil waxaan ka baryaa ciida inaad ka hoos marin. tix walbaan curiyaa cayn walbaba u hadlaa qiimahaaga caam ahaan oraah kuma camimi karee caadil waxaan ka baryaa ciida inaadan ka hoos marin. waxaan leeyahay mar kale hambalyo dhammaan reer Al-Anwaar. suurogeliyaha barnaamijka Allah subxaanahu wa tacaala iyo weliba madaxda tartanka subaxley ugu horeeya Axmed Suleymaan Xaaji Xasan iyo maamulaha iskuulka Saciid Axmed Xasan Saciid Balaas. waxaan ku soo dhawaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan ku soo dhawaynaynaa madaxa isdhexgalka ee bulshada ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee Garaadmaal. sacabka iyo soo dhawayntu waa xagiina Ruqiyo Cabdullaahi Xuseen. sacabkana ka baqaynina. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامي دمان
maamulka macallimiinta ardayda sharafta leh ee ku sugan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Anwaar horaan waxaa halkan ugu mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo maanta inoo suurtageliyey barnaamijkan quruxda badan inaan halkan ka qabano marka xigta waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo ardayda iyo weliba taabageliyaasha tartanka oo maanta iyagana waqtigooda qayb ka mid ah la siiyey si aan u muujino meesha uu naga taagan yahay calankeena Soomaaliyeed marka xigta waxaan halkan mahad gaar ah ugu celinayaa gudoomiyaha ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee Garaadmaal Mr. Xuseen Cabdinuur iyo weliba gudoomiyaha dhinaca wacyigelinta Mr. Cabdimaajid Cabdullaahi Cali oo maanta ka dambeeyay barnaamijkan quruxda badan halkan ka qabano marka xigta hadaan u soo gudbino maanta waxay ku baagan tahay 12 Oktoobar 2016 waa maalin aad iyo aad qiimaadkeena ugu leh waa maalintii la hindisay astaanta calanka Soomaaliya waa maalintii aan muujinay inaanu nahay dal jiro waa maalintii la aqoonsaday inay Soomaali tahay adduunka waddan ka mid ah kuma sii dheeraanaya barnaamijka wax badan ah meeshaan fadhisan tartanna wuu socdaa si ahaatee maanta waqti badan inaan hurno waa naga mudnayd halkan waxaan rabaa inaan kasoo jeediyo qaar ka mid ah tixayii loo tiriyey calanka Soomaaliya waxaan ku hormarayaa heestan calan suubano samadow ekow maalinkii la suray saanu doonayno sama ku waarnayo Saudi baan helne sama ku waarnayo Saudi baan helne waa inaynu sarkacno salaanu saarnaa markii la suuraye waa inaynu sarkacno salaanu saarnaa markii la suuraye usacbiyay aad baad u mahadsantihiin waxaan ku xijinayaa saarkan oo tiriyay Allah u naxariiste qof nagu weyn abwaan Carees Ciise Kaarshe wuxuuna u dhacayaa sidan dabcan gooraan nahayo Soomaalidu kala tag iyo tafaraq ay taagan tahay 13 kibil ilaa baatoosiyo talaana laba tago tutiibaana la tuso tariiq baana baxo xorriyadda maan helne ilaa bataajiro talaabaan qaadnay iyo tusmadii Soomaalida iyo talmoona calankayagu taadii kale waxaan lahaa taariikh weynoo dhinto aan tiiranyaysannahay haweenkan taagnay baa tariiq reerka u baxay ilaa bataajire talaabaan qaadnay iyo tusmadii Soomaalida iyo talmoona calankayagu tubtii kale waxaan lahaa wixii kugu taxalluqo kana waan laga tegay waa in laga taxadire ilaa bataajire talaabaan qaadnay iyo tusmadii Soomaalida iyo talmoona calankayagu taadii kale waxaan lahaa aad baad u mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabeynaya dhanka magsarka iyo mashiinka farsamada maanta waxaan naga qaabeynaya oo naga hagaya wadaniyaad wada taqaaneen Cabdimaajid Cabdullaahi Cali dhanka kameramaanka la hortaaganna uu naga qaabeynayo Xuseen Faasho waxaan ka codsanaynaa ardayda oo aan wada sugaynaa oo aan u wada heelannahay inaad u wada istaagtaan calanka ayaga qiimaha iyo qaayaha badan la soco ama ogsoonow calankan dad badan inay halkaan keeneen annagana waxaa looga baahan yahay inaan kor u sii qaadno aan u istaagna aan talaan u saarna calanka aan u istaagna talaan aan u saarna calanka sidaad u wada dhantihiin Soomaaliya ha noolaato calanka u wada istaagay inta fadhidoo dhan waa maalinta calanka Soomaaliya la hindisay calankaan u wada istaagno sidaad u dhantihiin calankaan u wada istaagno wadaniyow calanka u istaag war calanka u istaag salaan tare waa mahadsantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantiin sida wacan ahaad noo dhiirigeliseen mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin run ahaantii markaan arkay arday wada istaagsan iyo heesta qaranka oo agteeda ka buuxayso waad dareemi kartaa haddii aad wadani tahay waad jirracoonaysaa waxay noo xiga oo aan wada sugaynaa macallin ka mid ah macallimiinta
dugsiga hoose dhexeeyo sare Al-Anwaar Ekis Dhama Yaasiin Cartan Maxamed Cali Bare Maxamed Sacad iyo Soomaaliya waa xajiina waa macallinkii waa macallinkayga waa macallinkoodii soo ustaad بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن بإحسان إلى يوم الدين. آدي كن يكون دير مامل معلمين أرضي لما أنت ماشي اسكوبت من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام كدب وحن آدي وهم بليانيا أوركا أرضي سبابري إجراد مال برنامج شنبروح البلد إيمان أي ضمن خصوصية من تاريخ روايها waxaan aad iyo aad aan u dareemayaa wadaniyadda iyo kalgacalka waddankooda ay u qabaan hadday isku howleen calankooda inay mataqaana maalinka la aas-aasay ay dib noo xusuusiyaan waxaase xusid mudan calankan maalinka la sameeyey ilaa iyo hadda wuxuu soo maray maraaxil fara badan dadkii u fikiray iyo dadkii sameeyey iyo dadkii gaaritaankiisa naf iyo maal buu hurayna waa in dhimatay iyo in hadda mataqaana waa yeela marka hadda maanta annaga haysano marxaladiisana annaga marayno marka waxaa muhiim ah ardayda inay mataqaana ku dadaalaan calankooda sharafta leh iyo gobonimadii Soomaaliya sidii ay mataqaana weligood u jiri lahayd marka waxaan leeyahay waa ku mahadsan yahay arday dib noo xusuusiyey calankana waa astaanta aan kaga soconnahay ummadaha kale qoloba calankeeda waa cayn annaga keenna waa cirkoo kale ee caanna lahayn maanta heesiina loo qaadayay waxaa calankaas loogu sameeyey astaanta noocaas ah in uu yahay calan waddankeena astaan oo ah lana rajaynayo rajadiisa la qabo intuu cirkaba adduunku uu dul taagan yahay inuu asagana weliga uu taagnaado sida horeba ardaygii hore uu noogu sheegay marka waxaan leeyahay in aan nidhaahno aabbayaabaa saas ah waxaa ka fiican anaa saas ah marka aabbayaalkan wayna soo gaarsiiyeen annagaana laga rabaa inaan sharaftiisa ilaalino kuna naaloonno aad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barnaamijkayga waxaan ku soo xirxirinaynaa mid ka mid ah heesaha Soomaaliya callankaagu waa hibo sharafkugu haboogaane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiinlo horweyn ku irmaano aad ku hiiranayse hebada waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo hebada waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hebadley wax ugu qabo wana lama huraane hagarley wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayo hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayo hanfi iyo duleeliyo barqmale dhulkeenuye inaga haleyno soomaaliyey hoy hoy dhaqaale weeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume hebada waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo hebada waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarley wax ugu qabo wana lama huraane hagarley wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayo hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayo Soomaali guul aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waddaniga daadeer cabdimaajid cabdullaahi cali waxaa inoo balanaa sanadkan sanadkiisa maalintan maalinteeda wakhtigan wakhtigiisa ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee garaadmaal oo idinkaga tegaya salaantan salaan la mid ah wasalaamullaahi tacaala calaykum wabarakaatu